guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba, iyo adiga oo fayo qaba. Goorta carruurta ay gaariga kula saaran yihiin, waxaa aad muhiim u ah inaad iska hubiso in ay si ammaano ah oo fiican ay gaariga kursiga ku wada xiran yihiin. Sharcigaa sidaa ah oo waxay xaqiijinaysaa in carruurtaada ay ku dhowrto haddii shil uu dhaco. Si ubadkaagu uu u badbaado, kursi ku habboon u door. Dhig goobta saxda ah oo jihada saxda ah wejiga u aadi. Kursi ku habboon, bar ku habboon, jiho ku habboon. Ubadkaaga u door nooc kursi oo ku habboon oo ku fiiri culayska iyo da'da ubadkaaga. Kursiga baabuurka dhig meel ku habboon oo baabuurka dhexdiisa ah. Carruurtu waxay ku badbaadaan inay fadhiistaan kursiga dambe ee baabuurka. Iska hubi in kursiga gaariga uu tilmaamayo jihada saxda ah. Ilmaha sabiga ah iyo kuwa da'da yar waa inay fadhiistaan kursiga dambe iyagoo wejigooda dhanka dambe la aadinayo, ilaa ay aad uga cuslaanayaan oo miisaankooda kursiga uu deeqi waayo. Kursiga gaariga ee dhanka dambe wejiga la aadinayo waxaa ku xiran oo markaa uu dhaqaaqo la dhaqaaqaya si ay u ilaaliso qoorteeda iyo taxanaha lafdhabarta. Dhallaanka intooda badan way ka koraan kursiga gaariga ay carruurtooda ku fadhiistaan marka ay gaaraan 8 ama 9 bilood jir. Laakiin waa inaad iska hubisaa xadka miisaanka inuu ku qoran yahay calaamadaha ku qoran kursiga gaariga ee carruurtooda ku fadhiistaan si aad isaga xaqiijiso. Qaar ka mida kursiga gaariga ee carruurtoodu ku fadhiistaan ee gadaal u jeeda way beddelmaan. Taa waxay macnaheedu tahay waxaa loo beddeli karaa kursiga wejigiisa horay aadsan inta ubadkaaga uu ku sii korayo. Inta badan kuraastan in badan dhallaanka culus ayay hayn karaan oo waqti dheerna way hayn karaan. Dhallaanka ay da'doodu ka hooseyso 1 sano jir waa in mar kastaba lagu fadhiisiyaa kursiga dambe iyadoo gadaal sii fiirinaya, balse isku day in inta suurtagalka ah isku day in ubadkaaga dhanka dambe uu u jeedo, maxaa yeelay ilaalada ugu wanaagsan ayuu ka helayaa. Goorta dhallaanka uu aad culays u sii noqdo, in gadaal kursiga dambe lagu fadhiisiyo, waxaad ku wareejin kartaa kursiga gaariga oo wejiga horay loo fadhiisiyo. Ubadku waa inuu kursiga gaariga ee carruurtooda ku fadhiistaan ee wejiga hore la aadiyo kusii fadhiyaa ilaa laga gaarayo ugu yaraan 4 jir. Markay noqdaan oo miisaankoodu gaaro ugu yaraan 40 pound ama ilaa ay aad uga korayso oo uu ka yaraado kursiga gaariga. Goorta garbaheeda uu ka sii dheeraado xarigga isbaallaha lagu xiro, markaa waxaa la soo gaaray in lagu soo wareejiyo kursiga kor u qaadaha. Kursiga kor u qaadaha waxay ubadka ka kaalmeeyaan inuu kor u fadhiisto si suun xirashada ay ku habboonaato, si habboonna uu u qabto cajarka iyo shafka. Sida aad arki karto, waxaa jira noocyo kala duwan ee kuraasta gaariga ee carruurta ku fadhiistaan oo aad ka dooran karto. Tan ugu muhiimsan waxay tahay inaad kala soo baxdo kursi si ammaan ah baabuurkaaga ugu xirmaya oo miisaanka ubadkaaga iyo da'diisa iyo miisaankiisa ku habboon. Xusuusnow in aad si ubadkaaga uu u badbaado kursi ku habboon u door. Dhig goob saxda ah oo jihada saxda ah wejiga u aadi si ubadkaaga uu u badqabo.